ما أنت بنعمة ربك بمجنون oo adiga Muhammadow sallallahu alayhi wa sallam oo igu nimcada rabbiga ma tihid mid waalan وإن لك لأجرا غير ممنون وحقيقي adiga lihidaada Muhammadow sallallahu alayhi wa sallam waxay ahaan doontaa ajr weyn وإنك لعلى خلق عظيم وحقيقي waxaad Muhammadow sallallahu alayhi wa sallam ku sugan tahay dibci sare oo akhlaaq ku salaysan فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون waad arki doontaa oo iyagana way arki doonaan midkiini qaba waalida sidaas oo kale alla weyna wuxuu nabigiisa ku yiri wama saahibukum bimajnun eedadow saaxiibkiina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma aha mid waalan وانا دب أرنتي وألا وين كوشة نبيجيس محمد صلى الله عليه وسلم محايلي وحا نبيجيني أماني مسلم يا قال كسف ومتك عقلي سلكا شدي أما باري قف أهان قفك وياهي نبيجينا محمد نحرسي نبتقلي دوشي ساعاتي وحين قار كمدها قال راسي قرين إن نبيجينا محمد نحرسي نبتقلي دوشي ساعاتي وها حلكي وألا وين أصدري دونيدان بل آن فيرين وحاي كدهين boqorkii Room ee Hiraqle wuxuu su'aalo badan weydiiyay Abi Sufyaan isagoo wax ka su'aalay nabigeena Muhammad naxariisna badgalay dushiisa ahaatee wuxuuna hadalkiisii ku soo gabagabeeyay isagoo ka run sheegay Muhammad naxariisna badgalay dushiisa ahaatee dacwada uu siday inay dhab tahay wuxuuna yiri haddii aan agtiisa joogi lahaa Muhammad waxaan u dhaqi lahaa cagihiisa boqorkii xabashida ee Najaashina waxa ilin darteed indhihiisa ilaa ay garkiisa buuxiye biyo kadib markii uu dhageystay qaar ka mid ah aayadihii quraanka ahaa wuxuuna yiri wallahi ayaan ku dhaartay waxa uu la yimid Muhammad iyo Ciisaba waxa ay ka wada yimaadeen hal meel falsafadahanka reer Faransa Lamartine wuxuu ka yiri nabigeena naxariisna madgalay dushiisa ahaatee محمد وحو أها قفآت أفكرة أفتهن هجامية ديميد شرعية دجية هجامية عيدنا يمد قوليستا إساقو هذا الكيس سيراعي هدي أن كأيغ محمد قفقو أها دون ولبا وحان جعلان لها إن أن سؤال ويديدتك مجرى قفل من محمد نحرس نبتقلي دوشي سهاتي sidaasi oo kale qoraaga caanka ah ee reer Britain George Bernard Shaw wuxuu yiri caalamka aynu ku noolnahay wuxuu u baahan yahay fikirkii casriga ah ee Muhammad naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee haddii uu Muhammad maamuli lahaa caalamkan maanta jira wuxuu inoo heli lahaa xalinta dhibaatooyinka ee naga haysta dunidan sida amaanka nabadgelyada iyo farxadda taasi oo ah basharka noloshiisa sidaasi oo kale qoraaga buugga The 100 Michael Hart wuxuu yiri doorashadiida aan u doortay Muhammad naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee liiska qofka ugu horeeya ee boqolka qof ee ugu saameynta badan dunida waxa ay la yaab ku noqon doontaa aqristayaasha لكن حقيقي وقفك كلية تاريخ الجبي أهم بكوكو ليستي نولش مدة الدين تاعه يمد الدنيا بعد دنك كلا هجاميه هنديا مهاتما غاندي وحو رسول كيني كيري إساقنا كدب مركان لما يستعقرين تاريخ محمد قيبتي لبعض وحان دريمين أن أبا هنهي إن وحكسي أغادا إن بدن نرشي محمد نحريسي نبتكي دوشي سهاتي wuxuu ahaa qof hogaamiye dunidan dood la'aan isla markaana hantay qalbiyada malaayiin uunka kamid ah qoraaga reer Britain ee George Wells wuxuu isagana rasuulka Alle ka yiri wuxuu ahaa qofkii ugu weynaa ee midnimada u taagay dawladii adduunka ugu weyneed ee cadaaladda ku dhisnayd iyo isa saamaxaadda qoraagii caanka ah ee reer Ruushna Leo Tolstoy wuxuu ka yiri nabigeena naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee إن شرعك إيه قانونك محمد إيه قبصان دونت عالم كويدل أيضو عقلية ضدك إيه أديعي دونان أيضو حكمت أي كل يهانتهاي تاريخيان كرير فرنسا جوستيف لبناننا وحو نبيجيني محمد نحريس نبتقلي دوشي ساعتي كيري محمد وحو أها قفكي وينا إيه تاريخ ده أبد دوني الصومراء sidaas oo kale ninkii alifay buuggii taariikhda la magac baxay ilbaxnimada Will Durant wuxuu isagana ka yiri rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam haddii aan qiimeeyno qofka ugu saameynta badan dadkii dunida soo maray waxaan dhihi lahayn Muhammad ayaa ugu weyn taariikhda dadka oo dhan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waka amaantii rasuulkeeni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay amaaneen kuwa aqligooda la kaashaday wuxuu ahaa nabigeena Muhammad صلى الله عليه وسلم وحي بارين حقيقة نبتأ قفك وياهي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم